Haya khiyaarta soo dhawaada muuqaalkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa taliyaha nabad sugidda. Taliyahan ayaa wuxuu soo qabtay waxyaabo fara badan oo sharci darro ah, wuxuuna warbaahinta iskugu wacay inuu waxyaabahan caddeeyo wixii yihiin. Laakiin wax yariis ka bacdi waxa imaanayo eeygaas oo ka tirsan ciidanka. Isla markii eeygii wuxuu urinayaa alaabtii ayaa laga shakinaya, waxaan loo maleynayaa inay ku jiraan waxyaabo qarxayo. Dadkii meesha joogana way kala cararayaan iyagoo isdardarayo. Isla markii waxaa loo dirayaa ciidanka u tababaran bixinta miinooyinka iyo bambada. Ciidankii markay baaraan meesha wax ku jira waa jab hilib ah, dadkana waxay u baxsadeen wax qalad ah. Isla markii wax meesha ku nijabayo eeygii waxaa dhammaan ku qoslaya askarta. Eeygii ayaa iska baxayo, wuxuuna aasanayaa duurduurka, wuxuuna iska saarayaa dharka ciidanka. Waxaa imaanaya nin, wuxuuna kaxaysanayaa eeyga, wuxuu geenayaa meel eey kale lagu hayo. Eeygii wuxuu weydiinayaa eey kale oo meesha jooga, wuxuuna ku leeyahay meeshaan waa intee. Wuxuu ku dhihi doonaa halkan waa meel halis ah, waxaan lagu tijaabiyaa eeyaha iyadoo lagu tijaabinayo daawooyin, waxayna ka cabsinaysaa eeyga cusbay oo la keenay xerada. Waxay riska bacdi waxaan arki doonaa in lagu magacaabo Dan. Ninkan ayaa wuxuu ka yahay waardiye hotel. Isla waqtigii waxaa imaanaya goobta Dr. Simon. Dan wuxuu weydiin doonaa AD-giisa Dr. Simon. Dr. Simon ayaa wuxuu la soo bixi doono AD-giisa. Dr. Simon saaxiibkiisa ayaa meesha ka shaqeeyo oo la dhaho Kadley. Dr. Simon wuxuu u imaaday inuu soo wato Kadley. Kadley iyo Dr. Simon waxay imaanayaan goobtooda, goobtaas oo ah meel sheebaar ah oo lagu tijaabiyo daawooyinka kala duwan iyo waxyaabo chemistry ah. Dr. Simon wuxuu isku darayaa waxyaabo fara badan oo chemistry ah, wuxuuna leeyahay waxaan ku tijaabinaynaa eeyaha eey ka mid ah, wuxuuna ku dhihi doonaa ii soo qabo eey ka mid ah eeyaha. Kaad wuxuu isku dayayaa inuu soo qabto eeygii cusbay oo soo qabanayay, laakiin eeygan ayaa ka baxsanaya Kaad intuu eeyga ceersanayay laabka dhan ayuu isku qasi doonaa, wuxuuna ka dhigi doonaa laabka mid jabsan. Dr. Simon ayaa waqtigaas daawanayay, laakiin eeygii daawooyin fara badan ayaa ku daadanayo, qaarkoodna waxay ka gaarayaan jirka, qaarkoodna waxay ugu shubmayaan afka. Eeygii isla markii waxaa arkaynaa oo yeeshtay baabar. Eeygii wuxuu jajabinayaa albaabaha asigoo ka baxsan doono meesha, wuxuuna ugu baxsan doonaa baabarkiisa. Dr. Simon arrinkan waxay ku noqonaysaa arrin mucjiso ah. Dr. Simon waxaa kusoo kordhacayo waxyaabo laabka ogtay, meeshiina way kasii daraysaa, wayna wada gubanaysaa. Eeygii wuxuu soo aasanayaa duurka. Eeygii waxaa la hadlayay eeyo kale, waxayna isku dayayaan inay waabsadaan eeyga. Isla markii eeygii waxaa ku dhacaya gaari. Ninka gaariga watay ayaa wuxuu ahay Dan. Wuu soo deganayaa, wuxuuna kasoo hoos bixinayaa eeyga gaariga. Dan wuxuu soo saara doonaa eeyga gaariga. Subaxdii ku xigtay waxaan arki doonaa Jack waxaa dhalay Dan. Jack wuxuu aqrisanayaa cashiradiisa iskuulka. Jack wuxuu usoo baxayaa banaanka. Markuu usoo baxo banaanka wuxuu arki doonaa aabihiisa Dan oo wado eey cusub. Jack aabihiis wuxuu sheegi doonaa eeyga inuu yahay eey baari ah, wuxuuna u sheegi doonaa magaciisa in loo Shushan. Dan waxaa ka dhimatay xaaskiisa, Jack hooyadiisa. Xaafadana Jack waxaa ku haysto cidla aad u fara badan, wuxuuna eeyga u keenay inuu weheshado Jack. Subaxdii ku xigtay Dan iyo Jack waxay ka tegayaan guriga. Dan wuxuu aasanayaa shaqadiisa, Jackna wuxuu aasanayaa iskuulkiisa. Waxaa guriga loogu tegayaa eeygii guriga dhan ayuu isku qasaya, wuxuuna jijibinayaa alaabta taale. Jack oo iskuul ku imaaday ayaa guriga kusoo noqon doono. Jack wuxuu ka yaabi doonaa alaabtii guriga taale dhan oo isku qasan, qaarkoodna jaban tahay. Jack wuxuu isku dayayaa inuu hagaajiyo alaabta guriga taale, laakiin wuxuu maqli doonaa codkaas oo lagu dhahayay aniga ayaa isku qasay alaabta guriga taale. Jack wuxuu u maleynayaa inuu la hadlayay aabihiisa, laakiin waxaa la hadlayay eeyga. Jack waxay la noqonaysaa arrin mucjiso ah. Jack wuxuu iskaga soo tegayaa guriga, waxaana soo daba kacaya eeygii. Jack wuxuu fadhiisanayaa meelaha lagu nasto, waxaana soo ag fadhiisanaya eeygii. Jack iyo Shushan ayaa ku sheekaysanayay meeshaas, laakiin wax yariis ka bacdi waxaa u imaanayso Jack gabar la dhigato iskuulka oo ah Jack saaxiibadiisa, waxayna wadatay eeyadaas oo lagu magacaabay gabartan magaceedu waxaa lagu magacaabaa Mowgli. Waxaana sheekaysanayay Jack iyo Mowgli, waxaana sheekaysanayay sidoo kale eeygii lagu magacaabay Shushan iyo eeyadii lagu magacaabay Mowgli. Jack wuxuu bilaabayaa inuu tijaabiyo labada eey, wuxuuna u tuurayaa geed yar. Isla markii Shushan oo ah eeygii baawarka lahaa ayaa wuxuu soo qaban doono geedkii asigoo duuli doono. Jack wuxuu tijaabinayaa eeyga, wuxuuna ku tijaabinayaa waxyaabo fara badan. Jack wuxuu ogaanayaa eeyga inuu leeyahay awood fara badan, wuxuuna ogaanayaa meel aan dhaweynin inuu ka maqli doono hadallada. Wax yariis ka bacdi wuxuu maqlayaa meel dheer oo ka jirto Mowgli iyo Mowgli ayaa waxaa baaranayeen tuugo. Eeygii awoodda lahaa oo lagu magacaabay Shushan wuxuu bilaabayaa inuu asigoon u sheegin Jack inuu ka cararo meesha. Jack ayaa ka daba cararayo eeygii laakiin wuu duulayaa, waana markii ugu horreysay oo duulo intaan oo distance ah. Eeygii wuxuu kontarool weynaa duulitaankiisa, wuxuuna ku dhacayaa meelo fara badan. Sida uu dhaqsiyaha badan wuxuu soo gaarayaa Mowgli iyo Mowgli, wuxuuna meesha ku dilayaa tuugadii haysatay Mowgli waxaa u imaanaya isla markii laba askari ah, waxayna qorayaan report oo ah sidee ku qabsadeen tuugada iyo yaa dilay. Jack wuxuu guriga ka raadinayay eeygii ayuu wuxuu arki doonaa ku hoos jiro sariirta hoosteeda. Eeygii wuxuu u sheegi doonaa Jack inuu soo badbaadiyay Mowgli oo haysto tuugo. Jack iyo eeygii waxay bilaabi doonaan guriga inay dib u hagaajiyaan. Ayagoo guriga hagaajinayaan waxaa albaabka soo gargaraaci doono ninkii lagu magacaabay Kadley oo u shaqaynaya Dr. Simon. Jack ayuu wuxuu ku weydiin doonaa eeygan, wuxuuna dhihi doonaa waxaa iga maqan eeyga noocaan ah. Jack ayaa iska boojin doono, wuxuuna dhihi doonaa eey noocaan weligii ma arkin, wuxuuna halkaas ku diri doonaa ninkii raadinayay eeyga. Wax yariis ka
kabacdi waxaa imaanayo Jack aabihiis wuxuuna arki doonaa gurigii oo si fiican loo hagaajin. Cadley iyo Dr. Simon ayaa arki doonaa waxayna raadin doonaan meel cusub ay ka samaystaan laab. Waxayna arki doonaan meel jajabsan oo cid rabin. Waxay isku dayi doonaan meesha inay dib u hagaajistaan ay ka samaystaan meel laab ah oo qarsoon. Jack wuxuu soo aasi doonaa magaalada wuxuuna hor u soo kaxaysan doonaa eygii awoodda lahaa. Jack wuxuu soo gadanayaa buuggaasna waxaa ku qornay sida eyga loo tababaro. Jack wuxuu aqrinayaa wixii ku yaal buugga wuxuuna amar ku sii doonaa eygii ayaa qaadan doono hadallada Jack wuxuuna ku dhihi doonaa jiifo iskirgidi hadalkaasna wuu yeeli doonaa eyga. Jack wuxuu u soo diyaariyey geed yar oo u geliyo qoorta. Geedkaas oo ku qoran yahay adreeska guriga iyo magaca eyga Shushan. Jack iyo eygii awoodda lahaa Shushan waxay daawanayeen TV-ga ayaa waxaa laga dhahayay ey awood leh ayaa soo baxay oo badbaadinayo dadka. Jack wuxuu u sheegi doonaa eyga inuu maanta kabacdi noqday mid caan ah. wuxuuna u sheegi doonaa Mowgli iyo Bowli markuu badbaadiyey inay booliiska ay ogaadeen arrinkaas. Laakiin isla markii asigoo u wada warkii waxaa carari doono eyga wuxuuna hal marka dhex bixi doonaa albaabka asigoo duleelinaya albaabka. Shushan wuxuu gaari doonaa matxafkaas oo yaalin waxyaabo taariikhi ah waxaana matxafkaas joogeen tuugadaas waxay dhacayeen alaab qadiimi ah oo taalay matxafka. Eygii wuxuu garaacayaa tuugadii waxaa la socda dhaqaaqa tuugadaas Dr. Simon waxaana soo dirsaday tuugadaas Dr. Simon wuxuuna rabay inuu kasoo dhaco qalab matxafka. tuugadii waxay iska afkanaysaa meesha waxaana ka ceerinayo eyga. maalintii ku xigtay mar kale ay waxay ka arkayaan TV-yada eygii oo laga amaanayo. Jack waxaa kusoo dhacayso fikirkaas oo ah inuu eyga u sameeyo dhar sida dharka Superman camal wuxuuna u sameyn doonaa dhar ka samaysan maro buluug ah iyo geed hoos laga xirto oo ah gaduud wuxuuna u bixi doonaa magaca ah Underdog. eygii wuxuu bilaabayaa asigoo wato dharkii inuu badbaadiyo dadweynaha ku nool magaaladan. eygii waxaa soo wada qaadan doono warbaahinada sida joornaalada iyo TV-yada. Mowgli dhinaceedu waxay bilaabaysaa eyga inay ka dhigta caan waxayna diyaarinaysaa buug lagu magacaabo waa kuma eygii awoodda lahaa. taliyaha nabad sugidda ayaa mar kale wuxuu ku faani doono eyga awoodda leh wuxuuna dhihi doonaa waa xusi doonaa eygaas. waa hagaag waxaa arki doonaa mar kale Dr. Simon wuxuu isku dayi doonaa inuu soo saaro eyga camal ey ah. eeyo badan ayuu wuxuu ku tijaabi doonaa daawooyin laakiin ma heli doono daawada saxda ah ee eygan qaatay. Dr. Simon iyo saaxiibkiisa Cadley waxay ku tashan doonaan inay soo qabtaan eyga. waa hagaag waxaa arki doonaa wax yaris kabacdi ah dhisme aad u dheer oo kasoo dhici rabto naagtan ayaa waxay rabtay in la badbaadiyo laakiin isla markii waxaa kasoo gaarayo eygii awoodda lahaa wuxuuna badbaadi doonaa naagta. eygii markuu badbaadiyo naag meesha ma joogin waxaa joogay Cadley oo soo xirtay dhar naag wuxuuna isku dayayaa eygii inuu wato wuxuuna ku xirinayaa xarig laakiin Cadley waxaa lagu garaacayaa derbiyada asigoo lagu jiidayo dhulka. Cadley laakiin wuxuu kusoo guuleysanayaa inuu kasoo furo qoorta geedka uu xirnay geedkaas oo ahaa eyga magaciisa iyo adreeska laga helaya eyga wuxuuna u keeni doonaa Dr. Simon wuxuu soo afduuban doonaa maalintii ku xigtay Dan oo ah aabihii dhalay Jack. Dr. Simon Dan ayuu wuxuu ku sii doonaa amar wuxuuna dhihi doonaa eyga awoodda la soo qabo laakiin Dan waxba kama ogo eyga awoodda leh oo sheegayo Dr. Simon. Shushan oo ah eyga awoodda leh wuxuu ogaan doonaa Dan meeshuu ku xiran yahay Jack aabihiisa wuxuuna hor u soo kaxaysan doonaa Jack laakiin markuu meesha soo gaaro waxaa la qaban doonaa mar kale Jack waxaana sidaas lagu haystaa Dan iyo wiilkiisa Jack waxaana amar lagu sii doonaa eygii hadduu isdhiibi waayo in la dili doono labadan. Dr. Simon wuxuu bilaabaya inuu soo qaato qalabkiisa wuxuuna eygii siinayaa kaniini. Dr. Simon eygii wuxuu ku mudayaa cirbad wuxuuna ka qaadanayaa dhiig wuxuu isku dardarayaa waxyaabo aad u fara badan wuxuuna kasoo saaraya kaniiniyaal cusub oo awood lagu yeelanayo. Dr. Simon kaniiniyaashii cusbaay wuxuu siinayaa eeyihiisa sida u yeeshaan awooddan camal. Dr. Simon wuxuu soo aasanayaa matxafka ugu weyn magaalada wuxuuna hor u soo kaxaysanayaa eeyihiisa waxaana la socday saaxiibkiisa Cadley. waa hagaag waxaa arki doonaa meeshii oo lagu tegay Jack iyo aabihiisa Danny. Jack iyo Danny way iscaawinayaan waxayna iska furayaan xarkaha waxayna kasoo baxsanayaan laabkii Dr. Simon wuxuu ku guuleysanayaa inuu afduubto matxafka dhan. Cadley wuxuu soo qaban doonaa Mowgli iyo Bowli wuxuuna ku xiri doonaa dhismaha meesha ugu sareyso wuxuuna kula xiri doonaa bam wuxuuna dhihi doonaa haddaa meeshaan isku dayday inaad ka baxsatay way kula qarxi doontaa bamkan. matxafka dhan waxaa ku wareegsanaya dad aad u fara badan waxaana isla markii soo gaarayo eygii Shushan ahaa oo awoodda lahaa iyo Jack wuxuu ku dhihi doonaa soo badbaadi Mowgli iyo dadku jiro meesha laakiin eygii oo nii jabsan ay wuxuu dhihi doono baawarkeygii awooddeeda hadda ma haysto laakiin waxaa dhiirigeli doono Jack oo ku dhihi doono uma baahnid awooddaas. eygii wuxuu qaadan doonaa hadalka Jack wuxuuna gudaha u geli doonaa matxafkii. Mowgli iyo Bowli waxay isku dayi doonaan inay ka baxsadaan Cadley ayaa soo qaban doono wuxuuna kalkaa u xiri doonaa si xoog ah. eygii awoodda lahaa oo la dhahayo Shushan wuxuu bilaabi doonaa inuu la dagaalo Dr. Simon wuxuuna Dr. Simon kasoo daadi doonaa jeebkiisa kaniiniyaashii lagu yeelanayo awoodda. Dr. Simon wuxuu iska tuurayaa Shushan wuxuu ku dhacayaa dhulka laakiin wax yaris kabacdi wuxuu cuni doonaa kaniiniyaashii. Shushan oo ah eygii awoodda lahaa waxaa soo weerari doona eeyihii kale wuxuuna ka takhalusi doonaa eeyihii kale. Shushan wuxuu kasoo baxsan doonaa eeyihii. Dr. Simon ayaa arkayna isla markii asigoo cunayo kaniinigii sida u yeesho awoodda eeyaha. Dr. Simon markuu kaniiniyaasha cuno wuxuu ku tuuri doonaa walax eygii ayaa wuxuu ku dhici doonto walaxdaas. eygii
wuxuu soo baxsan doonaa banaanka sidoo uu imaado Jack wuxuuna Jack ka soo qaadan doonaa dharkiisa awoodda lahaa eygii wuxuu qaadan doonaa dharkii awoodda lahaa wuxuuna ku noqon doonaa madaxafka wuxuuna ka soo takhalusi doonaa Dr. Simon waxa halkaas laga soo badbaadi doonaa taliyaha ciidanka nabad sugidda eygii wuxuu badbaadi doonaa oo u tagi doonaa Mowgli iyo Bowgli oo saaran kor wuxuuna soo qaadi doonaa bamka wuxuuna la soo carari doonaa eygii bamkii ay wuxuu geli doonaa eyga dhulka hoostiisa asigoo u qodi doono dhulka meesha ugu hooseyso eygii markuu geliyo bamka dhulka meesha ugu hooseyso waxaa ku qarxi doonto bamkii eygii intuu god ka soo bixin waxaa u tuuri doonto bamkii hawada sare waxayna geey doontaa spaceka eygii wuxuu kasoo naqanayaa spaceka wuxuuna kusoo dhacayaa dhulka waxaa isla markii u imaanaya Jack waxaana badbaadinaya eygii Jack waxaa arki doonaa Dr. Simon iyo Cuddly oo ku jiro xabsiga oo la soo xiray waxa iska bacdana waxaa arki doonaa eygii oo sii wato inuu sii badbaadiyo dadka magaaladan filmkeena maanta wuxuu ku egyahay halkaas inta ku kulmin film noocan camal waxaan kaga tagayaa wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh